halkan waxaan uga dirayaa liicaato fariin liicaato oo gabar Soomaaliyeed iyo hooyadeed isku caayay oo wada caayay waana arki doontiin insha Allah tacaala fiidiyoogana dhamaysta mideeda kale idinkoo wax xubsanin oo micnaha dhuuxin comment caay ah iska soo qardaaris laakiin dadka iyagoo qoraalka kaliya ka raacaan kadibna waa la iska kaasoo caynaa iyagoo waxba fahmin ma garat kadib raalo oo lagu leeyahay ma moodeen markuu gadaal ka dhageysto laakiin marka dambe marka horeba hubso wax walaalayga qaaliga ayaan jeclahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga ee ku xiran channelkan Ciimo Baatri kal iyo laab soo dhawaada waana ku mahadsantiin commentigiina quruxda badan ee dhiirigelinta leh iyo subscribe-ka ma sha Allah walaalaha aan jeclahayo inta oo igu soo biiri doonta iyo inta igu soo biirtayba thank you ayaan wada leeyahay kulligiina share gareeya nana ka sii laagta ii badiya tan hoose ma ahayaa mid kor badiya buuxiya si loo arko fiidiyooga ma garateen waana ku mahadsantiin marka halkaas ugu baxo waad aragteen liicaat walaalayaal liicaat ayaa live ku jiray su'aalo ayaa la weydiinay gabar kamida ayaa waxay tiri walaalo liicaat waxaan rabaa inaad ii kala cadeysid adiga iyo Sumayo ma kala tagteen waa su'aal meesha taalo waayo asaga xaaskiisii baraha bulshada la yimid hataa la imaadana oo la waayana ama shanqartiini iyo isla socodkiini la waayana dee waa lagu weydiinayaa ma garat wixii lagu yaqaan hadii laga waayo waa lagu weydiinaa heblo maalmahan ma arage xagee ka dhacday waa lagu leeyahay ceebna ma aha maya ama haa su'aasha ee gabadha weydiisana waxay tahay liicaato walaalow gabadhii Sumaye ahayd ma kala tagteen haa iyo maya midna Muuse dhin wuxuu yiri shuubadii ku dhashay wase hada afkaygu macnaha dhow waxaan diidayaa moogta maxay ahayd caaydaas iyo muxuu yiri iyo liicaato iyo macnaha soo asaga u dhahay iyo u leeyahay wuxuu yiri shuubadii ku dhashay wase maxaa kaa quseeyo yiri dhexdeena ani iyo Sumayo علشان واتي برها لسلا ودودي وين إسلاميات أيضا ولا سعطة ولا فرية وأفكار حتى أيضا كقرتي ولا فرية ولا إفرية واسكت تقانا ماشان قفك يماذا أستجي إحاسكي سي عرورتي سدي لجواي ولا جويدينا يا ما أنت تدد أو درس كيجا حتى ما هاد ويان أما أنقول كجرا أما ميل كان هذا حقي آد ولي ليه سؤال نوايتاس وأنا مثل إسكولية ما قرت marka faniskaagi oo su'aashaas ku soo weydiiyeen inaad dhahdid dhiladii ku dhashay was shuubadii idinka buu arki doontiin shuubadii ku dhashay was miyuusan caynin gabadhii Soomaaliyeed ee walaashiis ahayd ee walaashiis oo kale ahayd miyuusan caynin hooyadiis sida u jecel yahay waa aragteen oo hooyadiis oo kale ah ayuu aflagaadeeyay uu caayay nin waxa mooday aqyaar ah oo ma aragtay ma sha Allah ah laakiin ameesh ku jirto maxaa erigaas uga xanaaqaysa wixii meesha yimaado adeer waa la isweydiinayaa marka runta ku sheego because adaa la yimi adaa naagta ninkeeda la imaada tii maalmo laga waay abaaye heblo hebel aawe waa la leeyahay laakiin caayina ugu jawaabtid waa ka xumahay because hooyaa ku dhasho hooyada adaa cunto cunaayo bismillah xataa ma dhahdid waxaad tiraahdaa hooyada heblaayay aad tiraahdaa sidaa u jeceshaa kaliya aad iyo aad ayaad u jeceshahay saa adigu u jeceshaa ka daran ayay dadkan hooyooyinkoodana u jeceliin Allah noo wada daaya kulligeena inta dhimatana Allah u naxariisto ma garateen laakiin hooyo in la aflagaadeeyo iyo gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah oo su'aal ku soo weydiisay oo kugu xirneed inaa micnaha jawaabtaas aasiiso oo weliba dumar ah hataa nin ma aha nin hadii la dhiila xoogaa waxaa la isdhiilaa moogtahay uu masayrayo gabadhu ka rabaa ma ka qaada rabaaye iska celi caydas xitaa hadduu dhaho laakiin ninka ragga haddaa caysid waa caadi laakiin hooyadiis asagana inaad gaartid ma aha laakiin gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah liyobo way tiri ma kala tagteen adiga iyo Sumayo kalmad xun ayaa ka soo baxday afkiisa
idinka lee dhahay waa isqabnaa idinka lee dhahay waa kala tagna idinka lee dhahay baranki waayo dadka waad waasheen laakiin su-aal qaldan gabadhaas kumaysa weydiinine waxay ku tiri ma kala tagteen abbaayo maya macaanta waa isla deganahay waa wada joognaa walaashay ama oo ahayn ma ahaa waa kala tagnay calafkeeni yaa dhammaaday intaasaa kaaga eg laakiin ayadii iyo hooyadii iyo afshaxankeedii ayaad caad ku siisay ma garat marka aad iyo aadaa uga xumahay nin oo maasha allah waxaan kuu maleynayay oo hooyooyinka jecel sida hooyada oo kale sida hooyadaadii oo kale oo magaceeda mar walba aad ugu dhaqaaqdid oo ugu dhawaaqdid oo bulshada aad u bartay xitaa magacii hooyada ayaad hooyo kale oo sida hooyada oo kale ayaad caysay oo aflagaadaysay xataa gabadha kumaada ekaanin hooyadeedii ayaad sii caysay waad ku qaldantaa runtii ma garat gabadhaas haddii lagu weydiiyana yah idinkaa waxaan ku dhaha sariiriini barkimankiini inta soo qaateen social media soo degay oo sarihiinii keenay ma garat qofkii aana keenin yaa fahmi lahaa oo wixiisa u qarsan yahay yaa weydii lahaa ma garat waa isqabnaayey waa wareey ilaa kulankiinii ilaa arooskiinii ilaa muxuu ahayd wada socodkiinii ilaa waxaan ku idhi labada dal aa kala joogtiin wixiina dhan waa noo soo gudbinayseen halkaasaa uga wada jeedna ee shacabka soomaaliyeed ka wada arkaayeen ma garat yaa su-aalla lagu weydiiyey ninyaho cayda maxay tahay hooyo islaamiyada u gaftay oo hooyadaa oo kale ah bismillaah cuntada beddelka aad dhiileed hooye warsanee qac aa siisataa hooyadaa cimri dheer allah siiyo allah ku daayo laakiin hooyooyinka islaameed sida hooyada oo kale inaad ka soo qaado ayaad leedahay mooyaane inaad caysa meeheen runtaa kuu sheegayaa wixii meeshaan yimaadana waa isweydiinaynaa maruna artaa masebeen maanta daaniga nin soo kaxaysto halkaan soo fariisto oo dhawaa ninkaygii waa sidan wuu i guursaday farraq aad dhaho uu ila soo galgalo oo annagooda hadleennana la arko oo xiriirno dee hadhow haddii la waayo ayaaman waa lagu weydiinaa oo weliba khilaaf soo kala dhex galay ama ma aragta barankeeda ma wax walba oo dadka loogu talagalo ha ahaade waa lagu weydiinayaa ma garat marka inaad saas u hadasho oo hooyada oo kale aad caysid iyo gabar walaasha ah oo faniskaaga oo kugu xiran oo ku daawata ee subscribe ku saarta oo laagta ku siiso oo commentiga ku siiso yah inaad saas ula hadasho waa qalad ma garat wax adiga sumcadaada hoos u dhigaayo waay ma garat yah maadaama aan maanta shacabka ay ku geeyeen ilaa adig keligaa iskuma saareen subscribe-ka iyo laagtee shacab baa ku geeyey maantana inaa isla weynin isbadaan dee waa laga fiican yahay sida qof aan ogahay oo kale yah shacabkaa kugu xiran ina iskala weynaata qalad waayo su-aasha dii lagu soo weydiiyo si oo ma aragtay oo aqliyeysan oo xigmadaysan ayaad uga jawaabi kartaa adoo mayana dhihin haana dhihin haddaa rabtid ayaad waxaad dhigi kartaa dib ayaanu dhiganayaa insha allahu mar kale ayaan jawaabtaas ka jawaabayaa xitaa haddaad dhahda xitaa wax qalada ma laha laakiin shuubadii ku dhasho was gabadhi shuubaad tiri hooyadaad shuubaad tiri maadaa arkaay marka laga shuubaysanayo ama laga dhaqtaysanayo ama maaragta la kor saarnaadi ma aragta sida hooyada oo kale wariyaa ayaa looga soo qaadaa hooyooyinka soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed yah adi waxaaba lagugu tirinaya dadka degan caytamin dadka waxba dhihin qof fiican ah ayaa lagugu tirinaya runtii laakiin hadda waa lagaa wada booday soomaalidu way ku wada aragtay wixii dhiig lahoo kaca ah ka dhacday oo hooyo ee dhashay na hooyo soomaaliyeed caysid aflagaadaysid yah innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun subxaana allah yah aad iyo aadaa uga xumahay waa hee ka gubto been ku sheegaya erigaas because hooyaa ku dhashay hooyadaa sidaa u jecesha ka daran ayaa loo jecel yahay waa inaad iska ilaalisaa qaladkaas oo kale runta kuu sheegaya nin raga xitaa hadduu ku dhihi lahaa xoogaa yah kan gabadho iga gaadooyaa camalnoo teeda kale inaad isfurteena oo maqalnaba annaga waaba kala tagteene
maxaa u xanaaqee mis sheekada baranki waaliye ahayd ya beryahan lamaanayaasha waxaa ku batay jil aan kuu jile aan kala kacsanee arrimahaasaa badatay wax la aaminayaaba jirinbo laakiin ninka xaaskiisa halkaan keeno iyo gabar walbo ninkeeda halkaan keento haddii la waayo ayaaman su-aashaas way imaanaysaa ha loo adkaysto wax dhibana kuma jabno weelkaan inta adimaa ka qaadoo kala waayo haa kama qaadin waa ka qaada haa anaa ka qaada maya kama qaadin waa intaas just waxa lagu weydiiyey oo kale ma garata laakiin hay iska soo jar dumaraan nahay hooyooyin gabdho walaalo eedooyin ah habaryaro ah ayeeyaal ah xaaskaagii ah waa dumar ha yaraata ha weynaatee waa isku mid ama hooyada aad ama hooyooyin kale aad kulli waa isku wada mid waa hee isku mid marka inaad midna ammaantay midna aad caysid aad ayaa uga xumaa nin rabo hooyadiis in la caayo ma jirto dhimasho ayay ka xigaan yah marka aada uga xumaa asxaabiha ila yaabina runtii waa wax laga naxo waa wax laga xumaado inuu hooyo caayo hooyo Soomaaliyeed oo masaakiin haddii rabto waa hore dhimatay inuu caayo qalad waayo because qof aad wax dadka fiican aa ku tirinaysa hadduu wax aada filinkaaga yimaado waa la tacjibay waa la yaabaysaa dadka caaya haddaan dhihi lahaa waxba mabuu arkeenbo laakiin qof fiicano maasha allah yo dadka masaakiinta samafala u ahoo reaction ka bixiya ahayd yah hooyooyinka aa reaction ka bixinayso masaakiinta ahayd iyo dadka qaar su-aalaha ay kusoo weydiiyeen hooyooyinkooda isku mid maahan miya yah ay dhuq aad iyo aad u caysay sheergaree walaalahayga qaaliga ee aan jeclahay laagtan hay iloobina iyo subscribe-ka walaashii Naciimo Gubaad taas miyeen ahayn asxaabta qaaliga haddii aan ku qaldanaa qaladaa ka Naciimo way dhigi kartiin waa ay qabsan kartiin ma garat laakiin in hooyo la caayo idinka baraali kama tin qof raali ka ahna ma jirto hooyo masaakiina waa hore dhimatay noola lama ogo gabadha xitaa niyadda ka jabisa ilbaa ka soo raaci karta qof ay su'aal weydiisay maya ama haa abaayo intaas heliyaa ku filnay ilaahay baa nale intaasaa ku filnay شركة نحن شيء دام كياره